سبحان الله سبحان الله سبحان الله waa wax igu xanuun badnaa abad internet-kan ka arko dhacdooyin badan waa jireen oo xanuun badan oo internet-ka ama social media ha la wado laakiin tani waa mid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواada xaqiiqatan maanta maaha muuqaalada caadiga ah aad iga barateen aan ka hadli jirnay inta badan maanta waa mid xaqiiqatan ka gedisan waa mid xanuunkiisa wata waa mid mawgidiisa wata waa mid muuqaalka intaan dhowr jeer duubay xataa aan tirtiray oo aan xaqiiqatan xamili waayey inaan idin soo bandhigo inaad aragteen waa laga yaaba ama aad maqasheen wiil hooyadiis si life ah xiriirka ugu jaray taas waxay ku timid kadib markuu asaga uu sheegtay inuu noqday kuwa loo yaqaano lagaroonayaasha markuu intaas sameeyey hooyadiisu u sheegay hooyadiis dabcan arrinta way ku inkirta wayna ku diiday waxayna tiri ceeb iyo fadeexa ay adduunkii dhigtay qaalina kamihii waxaa samaysay wax uu qof nin rag ah uu sameeyana haba ayaraatee ma ah waxaa la soo shir tagto ama aad ii sheegayso wax caadiya maaha ragguna ma sameeyaan waxaas isagana wuxuu leeyahay celcelina uu leeyahay adigu maxaan kugu ceebeeyey adiguna shaqsi baa tahay aniguna shaqsi baa ahay labadeenu laba shaqsi wax aniga xumaan sameeyey anaa iska leh wax adiga xumaan samaysan adaa iska leh wuxuu kaluu leeyahay adiguba gabdhahaagu waa la qabaa marka anigu haddii la i qabo maxay dhibtaa adiguba gabdhahaagu waa la qabaa hooyadii dhashuu ku leeyahay saas wuxuu leeyahay gabdhahaaguba rag baa soo doontay oo guursado aniguna haddii la i guursado maxay dhibtaa waa adduunyo gadoon caadi ah waan aragnay waan ogaanin dad badan ay sameeyaan laakiin hooyadiis uu si life ugu sheego uu si life ula doodo uu si life uu ku canaanto uu si life uu waxaas uu ku yiraahdo xaqiiqatan waa arrin fajicisa oo aad u xanuun badan muuqaalkaas ma jecli inaan idiin soo bandhigo inaad aragtaan mara anigaba si oo aan ku talagelin aan ku arkay isagoo meelaha socdaan arkay muuqaalkana ma sii dhammaystiran si fiican muu dhammaystiran waan isaga tegay laakiin wax la daawadana ma aha xataa wax lasii fidiyana ma aha wax meel kasta guri kasta inuu tagana ma aha oo qof la arka ma aha waa fasaad mujtamaca ku dhex fidaayo waxaa laga yaabaa kuwo kaleeto oo caqligooda uu daciif yahay inay ku daydaan oo ay qaataan marka haddii adiga sheer garayso oo aad faafiso oo aad meel walba geyso oo muuqaalkii la daawado waxaa laga yaabaa kuwo inuu qalbigooda taabto ilaan shaydaan aad la jiro shaydaankaa ku riixaayo ku bushgaraynaayo kadibna wuxuu gaaraa qofku inuu marka dambe asaga uu ku daysado uu yiraahdo qalal jilaac u qaado oo qofkaas xumaanta sameeyey uu ku daysado marka muuqaalkaas xaqiiqatan wuxuu mudan yahay meeshiisa lagu dhaafo inaan lasii faafinin inaan laga hadlin inuusan gaarin meel sare inuusan gaarin laakiin xaqiiqatan markaa fiirisid meeshaas waxyaaba badanaa laga baran karaa casharo badanaa ku jiro midda koowaad waxay tahay horta waalidku caruurtiisa ma korin karo hadduusan ilaahay la korinin macnaha waxaa loo jeedaa wax walba oo samaynaysid waa inaa ilaahay la kaashataa laa xawla walaa quwata ilaa billaah anigu xiiladna malihi awoodna malihi ilaahay ayaa awood iska leh inuu waalidka uu ku celceliyo laa xawla walaa quwata ilaa billaah macnaheedu waxaa waaye anigu xeeladna uma lihi awoodna uma lihi ina caruurteyda sida saxan oo ilaahay ila
rabo jecel yahay inaan u koriyo inuu ilaahay igu saacido mooyaane. marka mar walba inaa ilaahay gargaar weydiisato inuu ilaahay kula koriyo uu gaarsiiyo caruurtaada heerkii aad jeceshahay iyo diinta aad raalli uga tahay. laanna haddii aad dhasho oo aad tarbiyo un keliya iskuul geyso, dugsi quraan la geeyo oo intaas keliya kuma filna. laabudda waa lagama maarmaan inuu waalidka caruurtiisa uu u duceeyo, inuu ilaahay la kaashado, inuu ilaahay la kaalmo u weydiisto, inuu ilaahay la faqo, inuu waqtiyada muhiimka ilaahay u la faqo, ilaahay uu hortaga u yiraahdo ilaahayow adigaa ku tuugnay fidnooyinka midkooda muuqda iyo midkooda qarsoonba alloo naga dhaaf, alloo awlaadana la kori oo fidnada nooga ilaali. yaa rabbi waqti xunaa lagu jira, adigaanu kuu soo orognay, adigaana ku weydiisanay. yaa rabbi waxaan raalli ka ahayn ayay maalin walba dhagaheennu maqlaan, indhaheennuna arkaan. ilaahayow adigaan kaa magan galnay waxa ay sameeyaan oo kale inaan samayno oo aan ku dayano. yaa rabbi haddaada adiga iga aqbalin yaa iga aqbalaayo. yaa rabbi haddaada isiinin yaa isiinaayo. yaa rabbi albaabkaagaan taaganahay. yaa rabbi rajadayda ha baabeenin. yaa rabbi amuuraheenna saalo, caruurta noo kori oo noo badbaadi. yaa rabbi waxaan diinta islaamka ahayn raalli ugama ahi. yaa rabbi wanaag waxaan ahayn raalli ugama ahi. yaa rabbi adigaan ku kaalmaystay, wallaahu lmustacaan, laa xawla walaa quwata illaa bik. xaqiiqatan waxaa lagu jiraa casrul fitan, casriga fitanta ayna qarsoominay soo banbaxday oo meel walba ay taalo. moobaylkaagaad ka daawani, telefishinkaad ka fiirsanaa, waxaad ka daawanaysaa meel kasta oo wax laga daawado oo dhan. waxay yaacaysaa social mediaha meel walba. whatsappka adiga oon rabina qof kugu soo diraayo, facebooka qof baa kugu soo taagaraynayo. haddaad youtube-ka gasho oo aad rabto inaad waxyaabo kale ka barato ama aad ka fiirsatana waxaad arkaysaa wixii oo dhex yaallo. meel walba ayay fidnadii taallaa, guri walbana waa ay gashay. ilaahayna hana xafido. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.